14 sano ayaan reer lahay aan leeyahay alxamdulillaah anigoo Kenya cabaar ku nool oo ubadna Ilaahay subxaana wa tacaala ubadka Ilaaha bixi ubadna aan haysanin ayaan aaday wadanka Indiya 2 sanaan ku maqnaay 2019 aan aaday Indiya markaan tagay awlaad Ilaaha abuuray awlaad baa isku abuuray 5 bil markii awlaadeydii aan uur leeyahay awlaadii 2 mataana iga soo dhaceen alxamdulillaah bismillah meel kasta joogtaan waxaan idinka soo salaamayaa dhulkii barakeysnaa sida aad gadaasheeda ka arkaysaan waxaa ka muuqda saacadii xaramka ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo weli waxaan ku sugnaa dhulkii barakeysnaa waxaan dhulka barakeysan anigoo ku sugan aan jeclaaday inaan idinla wadaago mar walba waxaad ogsoontihiin al-shifa haddaan nahay inaan idinla wadaagno farxadaha iyo waxaa dadka al-shifa daawooyinka ka qaatay khaasatan daawada farxadda iyo reereynta hooyinka Soomaaliya ay ka qaadeen inaan idinla wadaagno insha Allah tacaala bal inta aan hadalkayga u gudbin bal aynu la qaybsano dareenka iyo farxadda ka muuqata hooyada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waani salaami dhammaantiin al-shifa meel walbaad joogtiin magacayda waa Hinda Maxamed waxaan joogaa Nairobi oon deganahay Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadda koowaad iska leh mahadda labaad al-shifa aad iyo aad u mahadsantihiin Ilaahay subxaana wa tacaala balkaad ii gudeen Ilaahay hanii gudo biidnillaah meel walbaad joogtaan aad baan ii salaamayaa Ilaahay subxaana wa tacaala hanii dambi dhaafo al-shifa meel walbaad joogtiin markii koowaad waan ii salaamay waxaan igu mahad celiyay ma garanayo Ilaahay subxaana wa tacaala hanii naxariisto hanii dambi dhaafo aniga bukaan ayaan ahay 14 sano ayaan reer lahay aan leeyahay alxamdulillaah anigoo Kenya cabaar ku nool oo ubadna Ilaahay subxaana wa tacaala ubadka Ilaaha bixi ubadna aan haysanin ayaan aaday wadanka Indiya 2 sanaan ku maqnaay 2019 aan aaday Indiya markaan tagay awlaad Ilaaha abuuray awlaad baa isku abuuray 5 bil markii awlaadeydii aan uur leeyahay awlaadii 2 mataana iga soo dhaceen alxamdulillaah waan ku laabtay haddana sidii camal waan sameeyay isla 5 bil markaan aan lugaha geliyay baa xanuun igu soo booday haddana sidii camal wuxuu Ilaahay qadar una dhaca qadartiyaa dhacday markaan sidaan u dhalay ayaan go'aan qaatay intaan go'aan ka qaadan odagaydan la tashtay waxaan dhahay waan soo laabani wuxuu igu dhahay maya mar kalaan sameynayna anna go'aanaan qaatay mayaan ku dhahay wadankiyaan ku laabani meel kalena uma socdo Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan niyada gashtaan ku dhahay daawada oo al-shifa inaan aado markaas wuxuu igu dhahay walaalay ma joogtid waan diiday kabacdeen waan soo laabtay 10 cisho markaan joogo ayaan al-shifa u imaaday way i baareen meel walba iga baareen hadaladii meelaha isbitaalada Indiya igu dhaheen iyukana waxay dhaheen wax walba okay wax dhib ma qabtid laakiin waxaa jirta dabeel waxayna dakhtariinta kala arkeen inay jirta alxamdulillaah
wiilashayna kheyr allah siiyo, ilaahay subxaana watacaala ha u dambi dhaafa ay arkeen. waayahan ku dhahay daawadiiaan soo qaatay muddo 3 bil ah. ani maadaama magaaladii deganahay waxaan ku dhahay bishii ugu koowaadaan qaadanaa, midda labaad waan soo laabani, midda saddexaad okay ay ugu dhaheen. waan soo baxay, daawadii baan soo qaatay alxamdulilaah. gurigeygaan imaaday, daawadii baan habeenka ugu horey qaatay alxamdulilaah. wallaahi ilaahay baa daawo igu daray, waayo qofkii garanayo daawooyinkan oo IVF lagu sameynayo dad badan ba jilbaha ay ka xanuunjisaa oo maaragtay aad baa loo bararaa. qofkii garanaa, qofkaan garanaynin ilaahay haba ka qabta ee al-shifaa ilaahay adduunyada noo keene kule al-shifaa ha ka war doonaano. aniga muddo 6 bil ah ayaan salaadeyda gudan waayey oon kursiga ku tukanin jiray. 6 bil anigoo sidii salaadeyda aanan istaaga ku tukanayninaan u imaaday. daawadii saliidaha la socdaan, saliidihii ay siiyeen 3 biri kadib alxamdulilaah ilaaha mahaddaas u sheegtaa. waan istaagan ku tukaday alxamdulilaah. salaadii sidaan istaag ku bilaabay, qof oo garbaha la qabanaan ahaayey oo la istaajina markaan istaaga camal, marka kalena caadiyan u socon karaa alxamdulilaah. yani 3 bil ma dhameynin aniga. bishii labaad markaan tii saddexaadan ka wadaa markaan soo qaatay alxamdulilaah rabbilcaalamiin ayaan cajis dareemay. bacdeen waan isbaaray alxamdulilaah. uuruu ilaahay igu siiyey. uurkaasna inaanba aniga IVF sameeya mooyaane weligay uur dabiici ma qaadin. daawada al-shifaa igu horeysay alxamdulilaah. wallaahi waan aamin waaye, isbitaalka laan tagay sidii camalaa lii dhahay. bacdeen marka alxamdulilaah rabbilcaalamiin ilaahay maanta ubad buu igu siiyey, wiil baa ii jooga. ilaahay subxaana watacaala mahaddaas u sugnaatay. mahadda koowaad, mahadda labaadna al-shifaa aan u mahad celinayaa aniga iyo qoyskayga dhan dhammaantood. aadaa u mahadsan tihiin. ilaahay subxaana watacaala abaalkiina allah nii godo. aniga qoyskayga dhan waxaan ii leenahay aad iyo aada u mahadsan tihiin. meel mugdi baan ku jiray, ilaah baa iga soo saaray, laakiin daawadiina ilaahay daawo igu daray. wallaahi mugdigaas koleyta aan ku jiray ani unaa dareemi karo. waayo facaada markay owlaad haystaan ilaah baa owlaada bixiya bay ku leeyihiin. maxaa dhacay 2 haya ama 3 haya maxaad haysaa camal, sida iyagoo ubadka bixiyaan dadka. alxamdulilaah koley murug waa ka soo baxay, ilaahay iga soo bixi. laakiin al-shifaa aad iyo aada u mahadsan tihiin. abaalkiinan waxaan ku gudna ma garanayno. anagoo faamiligayga iyo xaajigayga dhammaantiin waxaan leenahay badel kheyr qaba oo soo degdega biidnillaah. meel walbaa joogtiin farxad ku noolaada. aadaa u mahadsan tihiin al-shifaa, aadaa u mahadsantihiin al-shifaa. ilaahay hanii dambi dhaafa. abaalkiina waxaan ku gudi kara malaha. al-shifaa aadaa u mahadsan tihiin. wiilkaa maanta joogana koley waa ilaahay ka sokow, waa wiil al-shifaa. al-shifaa aadaa u mahadsantihiin dhammaantiin. aadaa u mahadsantihiin meel walbaa joogtiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. sida haddaba aad aragteen hooyadaas waxay ahayd hooyo la dhiban muddo 14 sano ah, wax awlaad la-aan ah aan haysanin. sida ay hadalkeeda ku cadaynayso la dhibanayd mar walbo dadka hadaladooda wehel ahaan ahayd. mar walba murug dareemaysay, qalbiga ka ilmeynaysay, mar walba dareensanayd oo yacni mar walba la murugsaday ilmo la-aan. ilaa markii dambe ay tagto India intaasoo jeer sida afkeeda ka cadaynayso ilmo isku soo beertay, laakiin alla uusan wax u qorin. markii dambena ay wehel ka heshay, ilaahayna ka siiyey daawada al-shifaa. ilaahay subxaana watacaala ummad fara badan oo ilaahay wehel ku siiyey daawadaas. waxaan markhaati kacayaa anigoo weliba jooga dhulkii barakeysnaa ilaahay doortay. waxaan markhaati kacayaa hooyooyin fara badan oo murugsan, oo ilmeynaya, oo aad u dhibaataysan,
oo qalbigoodana murug iyo dhibaato ka buuxdo inay farxad dheefsiisay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sabab ugu noqday ilmo marka aan la ilmeynayo bimacnaa maaha intay soo harfarsay inay oynayso laakiin qalbigu hoos ka ilmeynayo oo ay dareemayso murugta ilmo la-aanta iyo hel la-aanta xanuunka ay leedahay kadibna qaatay daawooyinkaas ilaahina daawo ugu daray waxaa wax fara badan mar walba aan la wadaaga hooyooyinka Soomaaliyeed saddex shay bas haddaad dareento daawada qaado meel kale ha ku daalin dhakhtar ku daasho oo aadan ka bogsoon daawadiisa yani aad mar walba qaadato oo xanuunku uusan kaa tegin ilmaha oo kaa soo dilma iyo mar walba qaarka dambe aadan ka socon haddaad intaa keli isku aragto waxaanada ugu yar baan dhihi karaa ee lagu yaqaano marka hooyada ay hayso xanuunkan loo yaqaano umsbiyaanada ama dabeesha ay hayso ama xagga ruuxaanta ka yimaado ama xanuunka xagga ruuxa ka yimaado inta haddaad isku aragto meel kasta joogto daawada ka dalbo insha Allah taala kaargo haday noqoto waxaad ka helaysaa qaybta Nairobi bidilaahi taala sida lamrada ka muuqdo ilaahay waxaan ka barin subxaanahu wa tacaala dhulkii barakaysnaa waan joognaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walba uu qaato uusan alla ku khasaarin inta qaatana ilaahay subxaanahu wa tacaala daawo khayr qabta oo barakaysan oo farxad iyo wanaag badan Allah ka siiyo waxaan leeyahay meel kasta joogtaan waa mahadsantihiin